goluhu maanta waxa uu bilaabay inuu isagu dhexdiisa isu soo dhawaado waxuu bilaabay inay wada hadlaan waxay bilaabay inay wada fadhiistaan waxuu bilaabay inuu kooramku uu qabsoomo waxaana loo ballamay wixii kale xaalxaala in xadda haddii subxaanahu wa tacaala ka dhigo la dhigo oo la isugu yimaado intaasaa golaha maanta ka dhacday marka inaad ku dhamaysataan bad ku heshiiseen in anagu dhamaysanay ku socotaa in anagu wada hadalay ku socotaa in labadii kooxood isu yimaadaan baa laga yaabaa oo wada hadlaan in golahu mid noqdaa laga yaabaa insha allahu tacaala in golahu wada fadhiistaa laga yaabaa next week inuu golahu qof wada doorto oo ay labada qole musharaxiintu ay si fiican oo qurux badan oo mushkilada aan ku jirin oo lagu wada koorsin tartan dhexdooda ka dhaco ciddii imanaysaa shirka waxa gudoomiyihii golaha loo doortay oo Habaashe ayaa gudoominaya 43 xildhibaanna meesha way fadhiisteen qoladii wadana way soo galeen way yimaadeen hasaate wali wada hadalkii wuu socdaa in wali se waxa laga yaabaa in wada hadalkaas insha Allah tacaala uu soo xidhmo way soo galeen ha jawiga idinkuna waa dareereyseen annaguna waan dareemaynay jawi aan caadi ahayn baa ka muuqday marka loo eego ciidamada kala gedisan ee ku soo waabariistay golaha halkaa wax barnaamijoo maanta idinku dhaafay ma jiraan golihiina waannu soo xidhnay taladuna laba geel bay dhex taal waxaana ugu dhow haddii ilaahay nafta loo daayo inta hawshaasi dhammaanayso inaannu guddoomiyaha labaad ee maalintii la weyto shir guddoominayey ilaa inta khilaafkaasi dhammaanayo cali yuusuf waxaannu rajaynaynaa inuu noqdo kusimaha shir guddoonka golahan hogaaminaya inta khilaafku ka dhammaanayo dareenka shaki aad buu u sarreeyey markii ay galeen qolada keligeena dowladda kale aanaan joogin kulmiya dowladduu joogay waxaanu u galnay inaanu golaha soo xidhno waanaanu soo xidhno annagoo isu dhan baanu golaha soo xidhno goluhuna dib buu u dhigtay wax waanu wada hadlayaa waanu heshiinayaa musharaxnimadayadiina waa sideedii cidna ugamanaan tanaasulayn kamana tanaasulayno halkiina waan taagannahay waanan ku adkaysanaynaa halkaa waxaa labaa hadda marka xildhibaan khilaaf baa taagnaa muddo bulshadu ku warsugaysa xalka laga gaarayo xalka goluhu gaaray muxuu noqday waxaan filayaa in wada hadal godaha dhexdiisa ayna ku dhamaanayso marka guddi baa loo saaray wada hadal wali guddi lama saarin laakiin waa la soo baxaya hadda waxa sheegteen kalfadhi loo ballansan yahay kalfadhiga waxa sheegteen xildhibaanada oo isla wada socdaa ay imanayaan saaf filaya haddii aan guddi la saarin xalku muxuu sidee loo oranayaa khilaafka loo xiriyay guddi qarsoon baa jirta وإذا أركي ما هو قبصامية قولوا ما بربريو هدو بربريو دوك نوا بربريسان مركا حويه لكن ماشي على سكوير هيا ومشرح مدي هنا مشرح مدي نوا اللي جايشين يا نكي سو شرح يا نايس سو تاغو أنا وكل يا ولا